saayidina sheekh wuxuu leeyahay waxaan deganahay Yurub lacagta cayrta ee ilmaha lagu qaato xajka ma ka aadi karaa lacagta ilmaha lagu qaato waa aafaadka ugu fara badan ee Soomaalida qurbaha jira horta haystay ka mid guryaha duma iyo islaamaha iyo nimanka isku kadeedanna waxyaalaha ugu badan ee sababay ka mid xogaagaas la isku haystaa oo islaantiina waxay warabtaa in iyadu gacanta ku haysato oo tabcato oo meel dhigato oo iyadu ku tasarrufto ninkii odayga ahana wuxuu leeyahay reerkaana oday ka ah wixii hal igu soo wareejiyo arintaasi waa dhib jiro xoolahan yaa iska leh horta su'aal isweydiin la xoolaha caruurta la siiyo yaa iska leh jawaabtu waxa way caruurta iska leh hooyana ma laha aabana ma leh caruurtana leh nidaamka bixinaya dawladda bixinaysa hay'adka bixiyana caruurta loogu talagalaa dad waaweyn looguma talagelin saas daraadeed waa milki iyaga khaas u ah iyaga wixii danahooda iyo duruuftooda loogu qaban waalidkood hadduu u baahdo hooyo ama aabba u baahdo wixii baahidooda way ka dabaran karaan aabba iyo hooyo laana xadiidkii baa jira nabigeena sallallahu alayhi wasallam anta wa maaluka li abika adiga iyo xoolahaagaba aabba idin leh halga wada culimadu waxay ku fasiraan aabba hadduu baahdo ilmaha caruurtiisa xoolahooda baahidiisa waa ka isticmaali karaa hooyaduna waaba ka sii xaq jirtaa oo ka xaq badan tahay marka wax baahiya haday jirto si kale ayna u dabari kareen ilmaha xoolahooda marka baahidooda asaasiga waa ka isticmaali karaan laakiin xoolahan caruurta iska leh hada qodob waa qodobkaas in la fahmo u baahan oo waalidkan hardamahaya maba laba waxaysan lahayn bay ku dagaalamaya waa mid labaadi waxa weeye ma laga xajin karaa hadday caruurtu waa weynaadaan oo xoolahooda ku xajiyay indhahan ku xajiya hadday yaryar yihiin xajku kuguma laazimine xoolahooda ha qaadan xaj kuguma laazimin haddaad xoolo aad leedahay aad xajka ku kari karto oo kugu laazimeyn xoolahaaga ka xaj haddaadan xoolo noocaas haysanin oo ku xajidana kuwooda xaj kaaga waajibi maayo wabitaali xajka u daa xoolahooda iyagaas u hay saalixdooda iyo danahooda kaga shaqeey dhinac kalena in la fiiriyo u baahan tahay oo xoolahaasi marar fara badan si khalad ay ku soo galaan Soomaalida oo ka sab xaraana markaa waa markay sidee ku yimaadaan markay been ku yimaadaan khiyaano waa isdawmaris nidaamyada iyo dawladda oo been loo sheeg wadaadkii oo shaqaysanayo xamaalanaya la qarinaya leeyahay maya shaqo ma hayo ama islaantii iyo wadaadkii baa waxay leeyihiin separate baan kala nahayo wax separation leeyahay yaani isma qabno waa kala maqana waana la isu dhuumanaya marka qaarkood sariirta hoosteeda la iska soo jiiday ninkii oo ku jira marka nidaamyadii baa la sirahayaa caruurtiina waxbaa lagu qaadanayaa dhanka kalena waa la xamaalanaya xoolaha sidaa ku imaanaya khiyaanada iyo beenta ku imaanaya waa xaraan inaad ka xajida iska dhaafay xataa ma isticmaali kartaa taana waa dhinac u baahan in la mulaaxadeeyo dhanka kale u baahan inaynu mulaaxadayno isla qodobka intaynaan ka bixin wuxuu yahay si ahaanteedaba caaqiyada iyo siismada gaalada ugu yaraan karaaha ku jirta xadiis baa jira nabigeenu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inni nuhiitu an zabd al-mushrikiin gaalada siismadooda iyo waxay bixiyaan baa la iga reebay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska Ahmad iyo Tirmidhi baa soo saaray min xadiisi Iyad ibn Himar waana shay xadiis saxiix ah culimaduna waxay ku fasiraan ugu yaraan waa karaaho khaasatan tafaasiil baa ku jirta gaar ahaan markii Yurub iyo wadamadaas qurbaha la yiraahdo xoolahan caayda ay la qaatay khissa ku jirta khissa yani liidnaan baa ku jirta urfiga wadamada iyo mujtamacaadkooda yani cid cayd qaadata agtooda waa ruux liita waa xoolo marka loogu talagalay dad liita ruuxan xamaalanin tabar yar dadka iska danleey waxa loogu talagalay
marka waxa noocaasoo kale ah in laga kaaftoomo la shaqaysto la xamaashaa asal ah dhankaana ishkaal bay ka leedahay walaa shaka fi dalik wallahu a'lam